kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Anisa Daacad waxa halkan idinkugu soo gudbin doona xogii u dambeeyay weerar culus oo lagu qaaday guriga magaalada caasimadda Muqdisho oo ka degan yahay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawaye Yuusuf Raage maxaad kala socotaa safar uu ku aadi lahaa dalka dibadiisa oo suurtaag lagu sameeyay yaase ka dambeeyay muuqaalkan ay idinkugu soo gudbin doona waxaa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo markaan cirka isku sii shareertay maxaa ka dambeeyay khilaafkoodii uu salku ku haya muuqaalkan ay idinkugu soo gudbin doona halkee xiligan uu ku sugan yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen xilli madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu baadi goob xoogan ugu jiro halka uu ku sugan yahay Laftagareen waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu suurtaag la doonayo inuu ka sameeyo Laftagareen isla markaana uu ku hor istaago safar uu ku tagi doono Baydhabo xogaa soo dhameystiranaya halkan idinkugu soo gudbin doona xildhibaanada mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed oo fariin adag u diray Laftagareen sidoo kale kuwa mucaaradka oo hanjabaado culus hawada u soo mariyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud intaas oo idil ayaa muuqaalkan idinkugu soo gudbin doona iyo wixii nagu soo kordho haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana fursad ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garee like inoo saar si uu gaaro asxaab badan waad ku mahadsantahay daawashadaada aynu ku bilaabno xiisada u dhaxaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa 48 saac ee la soo dhaafay cirka isku sii shareertay iyadoona khilaafkoodii uu salku ku hayo arrimaha doorashooyinka madaxweynaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaa la ogaa inuu yahay garab ka midig ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilligan waxa uu baneeyay garabka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud khilaafkoodana waxa uu noqday mid cirka isku sii shareeray iyadoo la og yahay in ansixinta dastuurka oo ay ansixiyeen baarlamaanka sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uusan ka soo hambaliyeenin iyadoo arrimahaasi dood adag ay ka taagneed isla markaana dadka ay qabeen tuhun balaaran sababaha ee Laftagareen oo saaxiib la ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saxiixitaankaasi ugu soo hadli waayay ayaa waxa markaan soo shacbaxday khilaaf u dhaxeeya labadaasi maamul goboleed aan iraahday maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaana arinta ugu badan la isku haysta ayaa waxay tahay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu doonayo in magaalada Baydhabo uu ku qabto doorasho isaga u gaar ah oo ah mid dadbaneed halka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo isna in magaalada Baydhabo ay ka dhacdo doorashada qof iyo cod ah arintaas ayaa keentay in madaxweynaha Koonfur Galbeed sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya ay isku dhacaan isla markaana khilaafkooda uu xirgaha u goosto warar kale ka soo baxaya magaalada Baydhabo gaar ahaan xildhibaanada ee taageersan madaxweyne Laftagareen ayaa waxay ku eedeynayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu magaalada Baydhabo iyo sidoo kale deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uu ka wado abaabul dagaal oo ku aadan madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya halkaasina la sheegay inuu isku dirayo qabaa'ilada ku nool deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyadoo hore magaalada Baydhabo uu uga dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamo taageersan maamulka Koonfur Galbeed oo hogaaminayo Cabdicasiis Laftagareen sidoo kale ciidanka mucaaradka ee la magac baxay ee badbaadinta deegaanada Koonfur Galbeed dhowr jeer oo hore halkaasi isku dagaaleen iyadoona dowladda federaalk ee Soomaaliya ay shalay ay darteen fariin culus oo ku aadan in taliyaal ka tirsan saraakiil ku sugan magaalada Baydhabo oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku soo laabtaan magaalada caasimadda ee Muqdisho balse ay ka biyo diideen qaarkood inay u hoggaansamaan amarka ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligan waxa uu baadi goob xoogan ugu jira inuu ogaado halka uu ku sugan yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen xilli la sheegay inuu xiriir uu la sameeyay taliyaha nabad sugidda ee Itoobiya halkaasi oo la sheegay in lagu tuhmayo inuu ku sugan yahay
madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareena isla markaana uu kala balamay in hadii uu soo gaaro in Itoobiya uu la soo wadaago isla markaana xog rasmi ah uu ka helo. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu diidan yahay in Laftigareen uu u gudbo magaalada Baydhabo. Hadii Laftigareen uu gaaro magaalada Baydhabo sida qorshuhu uu yahay waxa uu doonayaa in halkaas uu ku qabto doorashada isaga gaar u ah. Hadii Laftigareen uu qabsado doorashadii dadbaneed waxa markaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud arintan ay ku noqonaysaa in laga guuleystay. Horey waxa doorashooyin kala duwan u qabsaday maamulka Jubbaland uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale Puntland uu hogaaminayo Saciid Cabdullaahi Dane. Hadii markaan ay go'do koonfur galbeed Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu noqonayaa mid kaligiis ku noqonaya doorashada qof iyo cod iyadoo mucaaradka intooda badan aan iraahday ay la magac baxay Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ay dhankooda si adag ugu soo horjeedaan hab maamuuska ee doorashada ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inay dalka uga dhacdo iyadoona Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ay ku jiraan Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ay horeyba ugu diideen habka ee doorashada ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xilligan waxa ku soo biiray arintaasi madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo ahaa garabka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. khilaafka ayaa wuxuu noqday mid cirka isku sii shareeray xildhibaanadii mucaaradka sidoo kale kuwii taageersanaa Laftigareen fariimahan jawaada ay hawada isku marinayaan waxayna sheegayaan in hadii uu soo laabto Laftigareen ay kala wareegi doonaan talada ee deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya halka xildhibaanada taageersan ee Laftigareen ay fariimo kala duwan oo hanjawaada hawada u soo marinayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo ku eedeynaya in uu doonayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu doonayo inuu colaado oo ka abuuro arintaasina marnaba aysan ka aqbali doonin. xilligan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen lama oga halka uu ku sugan yahay iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in Laftigareen xilligan uu ku sugan yahay in Itoobiya isla markaana uu doonayo in safar dhulka ah uu ku tago magaalada Baydhabo maadaama garoonka diyaaradaha aadan cadde uu soo istaag uu ku sameynayo ama balse og yahay inuusan u ogolaan doonin in Baydhabo uu usii gudbo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana cabsi laga qabaa in Laftigareen markaan uu doorasho uu qabsado iyadoo la og yahay in khilaaf culus uu ka taagan yahay deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya halkaasina maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen dagaalo toos ah oo sababay khasaare u jira dhimasho dhaawac. xildhibaano badan ayaa ka soo horjeeda maamulka koonfur galbeed oo hogaaminayo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyagoona markaan sheegay inay doonayaan bedel kale oo ay ayagu iska soo dhax dooran doonaan. khilaafka ee ka alulsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka soo bilowday tan iyo markii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen la sheegay inuu xiray garoonka diyaaradaha ee degmada Buur-Hakaba halkaasi oo si iskooda la sheegay inuu u dhisteen shacabka sidoo kale mas'uuliyiinta ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan degmada Buur-Hakaba. wixii xooga ay ku soo kordho ee la xiriira khilaafkan muuqaaladeena xiga ayaa idin kugu soo gudbin doona dhinacana warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas Odawa Yuusuf Raage maalmihii la soo dhaafay uu la kulmayo weeraro isdaba joog ah oo lagu qaadayo gurigiisa isagoona la sheegay sidoo kale in soo istaag lagu sameeyay safar uu doonayay inuu kaga ambabaxo ee dalka dibadiisa. warar isa soo taraya ayaa sheegaya in taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yuusuf Raage loo diiday inuu dalka uu ka dhoofo xilli uu qorsheenayo safar dibadda ah. dhinaca kalena wararka ayaa tilmaamaya in gurigii uu ka deganaa magaalada caasimadda Muqdisho dhowr jeer oo hore uu kala kulmay weeraro isdaba joog ah oo ay fulinayaan kooxo hubeysan. weeraradaasi ayaa waxaa la sheegay in ay sababeen in qaar ka mid ah ilaaladiisa ay galaan filjignaan xoogan maadaama si isdaba joog ah weerar loogu soo qaadayo. arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sii xoogeysanayaan xiisadda siyaasadeed ee dalka iyadoona falanqeeyaal badan ay sheegayaan in Odawa Yuusuf Raage uu yahay shakhsi saameyn ku leh ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana caqabad ku noqon kara qorshayaasha siyaasadda ee dawladda. lama shaacinin ilaa hadda
cidda ee sida rasmiga u weerartay ee gurigiisa inkastoo aysan jirin ilo kaloo madax banaan balse warar la isla dhexmaraya balaha bulshada ayaa intaasi tilmaamaya wixii xogay ugu soo kordho haddii ay laga hadlo muuqaaladeena xiga ay idinkugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ugu soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkeena oo share garay laakiin oo saar si oo gaar asxaab badan waad ku mahadsantahay daawashadaada.